dhibkana haysto waxa weeyaan anaga haddaan nahay ummad muslimiin ah saa aniga u arko dadka soo hor fariisto ee u wacdiyo dhowr ay u qaybsamaan dadna waxa lagu magacaabo wacaad dad iska wacdiyo oo isticmaalo usluubta laablakaca ah ilaahay laga baqo dawlad islaamiga la soo celiyo naara la galay wax la mid ah on fiqi aqoon badan aan u lahayn wadaadadeena taasi u badan yihiin wacaad ay u badan yihiin waxa ku xiga dad fuqahaa ah way ka tira yar yihiin wacaadi fuqahaadii kala yaqaan maxaa xalaal maxaa xaraam ah iyo waajibaadkii kala yaqaan fuqahaada waxa ka sii sareeya group yar dad yar oo lagu magacaabo usuuliyiin dadka yaqaan usuul fiqh cilmiga lagu dajiyay aan qawaacid lagu dajiyay fiqiga usuul fiqiga wuxuu la mid yahay sida formal logic oo kale si aadan khalad aayada u fahmin quraanki ama khalad xadiiska nabiga aadan u fahmin cilmigaas ay dajiyeen oo lagu magacaabo usuul fiqh usuuliyiinta aad ay ugu yar yihiin haddaba marka qofka faqiiha ah ama qofka usuuliga ah waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay qofka kaxaynaya tareenka wadadii loo dajiyay kaliya ayuu ku socdaa kama leexan karo wadada sidoo kale ma soconayo xukunkiisa waa tareenkaas oo kaxaynaya waxaa marka aad iyo aad noogu yar qof lagu tilmaami karo mufakkir inuu yahay mufakkirkan wuxuu la mid yahay qofka kaxaynaya diyaaradda yani tareenkii wuu dhaxgalay wuu ogaaday waxa ku dhex jiro kadib uu ka soo baxay diyaaradda ayuu kaxeeyay qofka saa u sara maray arka tareenkan meesha uu ka socdo iyo meesha uu sii socdo arkana yani wadooyin kale kala duwan ama aqoon badan kala duwan awoodna u leh aqoontoodaas inuu taxliiliyo oo waxyaabo qaarna ku ayido waxyaabo qaarna ku khilaafo waxyaabo qaarna sax u arko waxyaabo qaarna qalad u arko caqligiisa xorka ah